السلام عليكم daawadayaal dal quwad caalami ah dalka weyn isku darka baaxadda laba qaaradood dal haysta kayd kheyraad oo aad u badan dal xuduud la wadaaga in ka badan 10 dal ay dhex qulqulaan ilaa 100,000 oo webi dal ay ku yaalaan 2 milyan oo haro dalka haysta dhulka ugu weyn caalamka ruushku waa dal ka mid ah wadamada dhaca laba qaaradood transcontinental country waxa uu dhacaa bariga Yurub iyo waqooyiga qaaradda Aasiya waa dalka caalamka ugu baaxadda weyn 8 meelood oo meel dhulka aynu deganahay ayay dawladda ruushku u dhigantaa baaxad ahaan dalka ruushku waxa uu ku fadhiyaa masaafo dhan 17 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran waxa xuduud la wadaagaa 14 dal oo dhaca Yurub iyo Aasiya dhul ahaan sidoo kale xuduud badeed ayuu la wadaagaa Mareykanka iyo Japan waana dalka ugu badan ee caalamka wadamo intaas leeg xuduud la wadaaga dalka Norway oo dhaca cidhifka waqooyi ee Yurub iyo waqooyiga Korea oo dhaca cidhifka bari ee qaaradda Aasiya masaafada u dhaxaysa ayuu ruushku ku fadhiyaa tirada dadka ku nool ruushka waxa lagu qiyaasaa 146 milyan oo qof boqolkiiba 77 dadkaas waxay ku nool yihiin qaybta Yurub ee Ruushka Moscow waa caasimadda Ruushka ahna magaalada ugu weyn Ruushka sidoo kale waa magaalada ugu weyn qaaradda Yurub Ruushku waa dal hodan ku ah kaymaha webiyada iyo harooyinka caalamiga ah in ka badan 100,000 oo webi ayaa mara gudaha Ruushka webiga Volga ayaa ah kan ugu caansan waana webiga ugu dheer qaaradda Yurub sidoo kale in ka badan 2 milyan oo haro ayuu Ruushku leeyahay harada Bakay oo ah harada caalamka ugu gunta dheer ana biyo fidhiisinka gudaada weyn caalamka ayaa ka mid ah harooyinka Ruushka waa dal leh kheyraad aad u badan oo saliidu ka mid tahay waa dalka ugu badan caalamka ee shidaalka soo saara waana dalka haysta kaydka gaas ee caalamka ugu badan sidoo kale waa dalka 8aad ee haysta kaydka shidaal ee caalamka ugu ballaaran waa dal shidaalka uu soo saaro ay aad ugu tiirsan yihiin wadamada Yurub ruushku ka hor sanadkii 1993 waxa uu ka mid ahaa ama hormuud u ahaa midowgii Sofiyeeti dalka ruushku waxa uu ahaa xilliga awood dunida ka muuqata dal guul weyn ka gaaray dagaalkii labaad ee dunida dal awoodiisu ku baahday caalamka tartan adagna kula jira Mareykanka Sofiyeetku waxay gaadheen horumar tiknoolajiyadeed oo aan la soo koobi karin waxyaabaha ay ku guuleysteen waxa ka mid ah inay noqdeen dalkii ugu horeeyay ee dayax gacmeed sameeya hawadana u dira dalkii ugu horeeyay ee qof aadamaha hawada sare u dira dalkii ugu horeeyay ee dayaxa ku duldega taariikhda iyo arrimo kale oo la yaab leh ayay dawladda ruushku dunida isku bartay ka hor inta aanay burburin midowgii Sofiyeeti waxa uu ahaa ruushku dalka labaad ee caalamka ugu dhaqaalaha badan dal haysta ciidanka ugu ballaaran ee dunida heegan ku jira dalka haysta hubka ugu badan uguna halista badan aadkan wax u gumaada ee nuclearka sanadkii 1991 oo ku beegnaa xilligii midowgii Sofiyeeti aadka u awood weynaa oo burburay waxa ka farxmay oo maanta jira 12 dal oo ruushku ka mid yahay muddo badan ayuu ruushku la dhibaatoonayay inuu awoodiisa dib u soo ceshado maanta ruushku nidaam ahaan waa dal federaal ah oo awoodda iyo maamulkiisu hoos tago madaxweynaha Vladimir Putin ayaa ah hogaamiyaha xukuumadda maanta waana shakhsiga soo celiyay awoodda ruushku lahaa dunida madaxweynaha hadda xukunka haya ayaa intii uu xukunka hayay ruushka ka dhigay dal hodan ah dhaqaale ahaan Vladimir Putin ayaa ah shakhsiga ugu awoodda iyo saameynta badan gudaha ruushka maanta ruushku waa dalka 11aad ee caalamka ugu dhaqaalaha badan marka loo eego 20 sano ka hor booskii uu joogay dalka ruushku taasina waxay muujinaysaa ruushka horumarka uu gaaray intii uu ku hoos jiray maamulka Putin sidoo kale ruushku waa dal aqoon ahaan iyo waxbarasho ahaanba aad u horumarsan waa dal leh dalxiisayaal badan oo booqda dakhli sanadeedka soo gala dadka Raashiyaanka ahi sanadkii waa $29,000
ruushku maanta waa dal saamayntiisa dhaqaale iyo siyaasadeedba ay caalamkaadu ka dhex muuqdaan. waa dal ka mid ah dowladaha ku hubaysan hubka caalamka ugu halista badan ee nukliyeerka, waana dalka haysta madaxyada ugu badan ee nukliyeer caalamka. waa awood dunida ka dhex muuqata, taasoo go'aamisa jihada siyaasadeed ee caalamku cagta saarayo marka laga tago dowladda Maraykanka. ruushka ayaan marnaba gorgortan ka gelin afkaartiisa. dowladda ruushka ayaa mar walba si adag u difaacda waddamada ay isku xulafada yihiin. waa dal ka mid a 5 dal ee haysta awoodda diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto power-ka, kana mid ah golaha ammaanka.